الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد maanta anagoo ah koox ka socota dugsiga sare ee al-irshaad ardaydii iyo macallimiintiiba wada socona waxaan maanta ku sugannahay dugsiga hoose dhexe ee hablaha irshaad primary school. maanta halkan waxaan doonaynaa inaan ku diyaarino barnaamij noo ahaa taxane oo in badan noo soo socday aan u marayno xalqadii 7aad aan maanta halkan maxay ahayd ku duubi doono. maanta barnaamijkan aan duubayno waxa la yiraahdaa waxa ku soo akhriyay kitaab ama qara'tu laka kitaab. barnaamijkan wuxuu soo socday waqti maanta waxa lagu sugayay xalqadii 7aad. maanta waxaan jeclaanay markaa inaanu u soo bandhigno ardayda ku jirta dugsiga hoose dhexe hablaha. sidaas ay tahay maanta waxaan soo jeedinaynaa buugga iyo warbixintiisa waxa idinka dhici doona ardayda wax saaran, laakiin inta ka horeysa waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo Qani Khadar Daahir oo inaga siin doonta warbixin guud ee barnaamijka iyo sidoo uu socdo iyo sidoo ku soo bilaabmay. ku soo dhawow Qani warahmatullahi wabarakatuh. magacay waa Qani Khadar Daahir kana tirsan ardayda dugsiga sare al-Irshaad Secondary School ahna class form 3 kana tirsan ardayda groupka laboratory-ga. maanta waxaan wadnaa barnaamij la magac baxay sida la sheegay qara'tu laka kitaab ama waxaan ku soo akhriyay dhigane. barnaamijkan maaha markii ugu horeysay la qabto, waa barnaamij taxana oo marba xalqad la qabto. barnaamijka waxaa la bilaabay muddo bishii 10aad waxaana bilaabay aniga oo buugga la magac baxay la oranayay Food for Today. qofkii hore lagu bilaabayna anigu ahaa. barnaamijkan waxaa laga faa'iideeyaa faa'iidooyin badan, waxaana kamid ah in ardaygii uu barto sidii wax loo akhrinayay una fududaato inuu fahmo luqadaha buugta kala ku qoran yihiin. waxa kale oo laga faa'iideeyaa in library-geena buugta iska yaala in laga faa'iideysto oo la akhriyo. ardaydeena waxay sameeyaan oo syllabus-ku bay akhristaan. syllabus-ka haddaad akhrido faa'iido badan ma helayso, wixii lagu xadiday un baad akhrisanaysaa, laakiin waxa fiican in aqoontaada aad kordhiso oo maskaxdaada weynayso. waxa kale oo laga faa'iideeyaa in bulshaweynta qofka kale aan buugan haysan aad u akhrido oo faa'iidooyinkiisa aad u sheegto si uu raadsado faa'iidada ku jirta buugan. horta markaan anigu soo jeediyay barnaamijka waxaan helay results badan, dad badan oo magaalooyin badan kala jooga ayaana ii soo hambaliyay oo yiraahday barnaamij fiican bad wadaan ee halka ka sii wada. ana waxaan leeyahay qof kasta oo kamid ah irshaad ama secondary schoolka ama irshaad oo dhan inuu isku taxallujiyo sidoo soo jeedin lahaa barnaamijka ama qayb uga qaadan lahaa. waxaan idinku salaamayaa islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad u mahadsan tahay Qani oo inaga siisay warbixin barnaamijka iyo sidoo uu socdo. inta haddaan ka sii socono barnaamijkeena u sii guda galno waxaan jecelahay maanta ardayda halkan nagula sugan ee ka socota dugsiga hoose dhexe hablaha irshaad inaan sidoo kale aniguna aan ka siiyo warbixin guud groupkan ka shaqeeya irshaad kooxda ardayda ah sidee u shaqeyso, sidee u soo bilaabantay iyo waxqabadyadeeda. groupkan wuxuu soo bilaabmay sanadkii hore halkaas oo maxay ahayd lagu bilaabay 48 arday. 48ka arday waxa lagu soo xulay fasalada 2, 3 iyo 4 ama form 2 iyo 3 iyo 4ka. waxa lagu soo xulay aqoontooda oo waxa la soo xulay ardaydii ka gashay kaalmaha hore. ardaydii form 1 markaa noo timiday oo iyaga la garanaynin aqoontooda iyo sidii u kala karti badan yihiin. iyagana waxa soo xulay maamulka oo marka arday gaar oo firfircooni ay ku tuhmayaan ka soo xulay. ardayda 48ka arday way soo socdeen, waxqabadyo badan bay sameyn jireen oo ay kamid yihiin in tijaabooyin ay iyagu soo diyaarsadeen oo ay soo tijaabiyeen ay ku sameeyaan laboratory-ga dugsiga sare al-Irshaad in ay maxay ahayd ka shaqeeyaan waxyaabo badan oo iskuulka hawlihiisa ah inay soo bandhigaan waxyaabo runtii cajiib ku noqda ardayda kale dugsiga dhigata. ardayda groupkaasi sanadkii hore waxa noo qabsoomay 2 bandhig. labada bandhig mid wuxuu ka qabsoomay dugsiyada irshaad ee sare hoose dhexe hablaha iyo hoose dhexe inamada. midkoodna wuxuu ka qabsoomay isla dugsiga sare al-Irshaad iyadoo kaasi gaar u ahaa barnaamij aanu TV ku duubnay. labada bandhig marka laga imaado waxaanu sameynay kooxdu waxay sameysay
in ay siisay tababar dugsiyada hoose dhexe ee aan ahayn maxay ahayd irshaad oo keliya aan ahayn markii aanu sameynay bandhig u sameynay irshaad oo dhan aanu gaadhsiinay fariintii aanu wadnay iyo wixii aanu gudbinaynay waxaan usii gudubnay dugsiyada kale ee dalka ka dhisan iyaguna primaryada ah kuwaas oo aanu soo siinay tijaabooyinkii aan anagu bixinaynay si fiican ay uga faa'iideysteen aadna way noogu mahadnaqeen intaas markii laga soo gudbay sanadkii markuu dhamaaday sanad dugsiyeedkii markuu bilaabmay 2018-19 ardaydii 48 arday la soo xulay waxaa survive garoobay oo soo hadhay 32 arday halka 16 arday kale ay la iman waayeen dadaalkii la doonayay iyo kartidii looga baahnaa inay la imaadaan 16 ardayna ay sidaa ku hadheen intaas kadib waxaa timid ardaydii formonada ee cusba waxaana loo baahday in arday kale la qaato iyadoo ardaydii kale dugsiga dhiganaysay dhammaantoodna ay xiiseeyeen inay ka soo qayb galaan sidaas tahay ardayda waxa loo ogolaaday inay soo dhiibtaan arji ay ku codsanayaan inay ka mid noqdaan kaasina mu ahayn codsi keliya oo la bixinayo wuxuu ahaa in ay tijaabooyin soo diyaarsadaan tijaabooyinkaasi sidii ay u kala wanaagsanaadeen ee u kala fiicnaadeen ayaa lagu soo xushay halkaasna waxaa laga soo xushay 35 arday oo kale iminka tirada guud ee ardayda ka shaqeysa laboratory-ga waxay noqotay 67 arday shaqadii aanu qaban jirnayna waanu sii kordhinay waxaanu ku soo biirinay inaanu ku darno qaybtii library-ga oo library-ga shaqadiisii si habsami ah ay imka u socotaa waxa ka shaqeeya arday gaar maalin kasta oo caawiya arday loo tababaray waliba sida wax loo akhriyo wax loo soo gudbiyo ayaa caawiya ardayda hadba maalinta ku akhrisanaysa library-ga waqtigan saacaha sidoo kale waxaan iyadana soo kordhinay in lab computerkii oo markaas ahaa un kaliya goob wax lagu barto xiisad lagu qaato inaan isagana ka shaqaysiino oo arday gaar ah maxay ahayd loo tababaro sidii ay u sameyn lahaayeen meediyaha ama fiidiyoyada ay u duubi lahaayeen ama sawirada ay u hagaajin lahaayeen qaybtii computerka iyo IT-gana waanu soo kordhinay alxamdulillah imka shaqadu si fiican bay noogu socotaa wax qabadyo badanna way noo qorshaysan yihiin sanadkan soo socda insha Allah waxa sidoo kale noo qorshaysan carwo weyn oo aanu ku soo bandhigno maxay ahayd magaalada Hargeysa oo taasoo noqon doonta mid caalami ah oo ay ka soo qayb geli doonaan cid kasta hadii Ilaahay idmo waxaan ku beegi doonaa hadii Ilaahay noo ogolaado March 25keeda oo ahayd maalin ayna soo gaadhay dhibaato laboratory-ga ay arday ka soo gaadhay dhibaato alxamdulillah imka ardaydii iyaguna meeniyo jabin wayna la socdaan wayna gala qayb qaataan sidii bay noola shaqeeyaan aanban ilaahdo waa ardayda ugu firfircoon maxay ahayd ka qayb qaata hawlaha laboratory-ga haddaan intaas kaga imaado warbixintaasi aan idinka siiyay sidii u shaqeeya kooxdaasi loo tababaray laboratory-ga library-ga iyo computer-ka waxaan ku sii socon doonaa maanta barnaamijkan halkan u fadhino ee la yiraahdo qiraa'atu lakal kitaab ama waxaan ku soo akhriyay dhigane barnaamijkaasi waxay noo soo jeedin doonaa laba arday oo la yiraahdo Sabriin Cabdirasaaq Maxamed iyo Ayaan Axmed Caydiin ku soo dhawaada waadin bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin maanta taariikhdu tahay 4 bishii 7 bishii 3 1441 hijriyada kuna waafaqsana 4 bishii 12 2019 waxaan maanta ka soo jeedinayaa hada mahad gaar ah waxa iska leh ardayda maamulkii macallimiinta iyo ardayda sida fiican u dhigaysanaysa waqtigooduna noo soo horay waxaan ka socdaa ardayda waxaan ahay kamid ahay ardayda dhigata Shaad Secondary School kana mid ah ardayda shalay ka baxay waxaan ka hadli doonaa buug la yiraahdo Shakhsiyat Umar ibn Khattab qisadiisii taariikh nololeedkiisii buugga waxaa qoray Dr. Ali Maxamed Salabi wuxuu dhashay 1963 wuxuuna ku dhashay dalka Benghazi dalka magaalada Benghazi ee dalka Liibiya wuxuu waxbarashada diinta Islaamka wuxuu ka bartay dalalka Saudi Arabia Suudaan wuxuu tagay 1990 ayuu tagay dalka Qatar wuxuuna arday u noqday caalamkii weynaaye Yusuf al-Qadaawi wuxuu ka mid noqday xubnaha firfircoon ee ururka Ikhwaan Muslimiin
wuxuu ku sugay hadda dalka Qatar wuxuuna buuga wax la daabacay laba qaybood qaybta koowaad oo la daabacay 2007 laguna daabacay dalka Masar iyo qaybta labaad oo la daabacay 2011 buugan waxa loo turjumay kaliya English waxaana la daabacay 4 jeer waxaan ku soo dhaweynayaa hadda ayaan oo ag farida inoo sheekay doontaa taariikh nololeedkiisa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. magacayga ayaan Axmed Caydi kana mid ah ardayda dhigata dugsiyada sare ee Al-Irshad Secondary School kana mid ah ardayda shalay laga baxay dugsiyada hoose dhexe ee Al-Irshad Primary School waxaan ahay galaasyada wananka waxaan naga soo jeedin doonaa taariikhda Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wuxuu ahaa intaan adsintiisii ku bilaabo wuxuu ahaa Umar bin Khattab هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الغصة بن رياح بن عبد الله بن غريدة بن رساح بن كعب waxa lagu naanaysi jiray Umar bin Khattab Abu Hafsa sidoo kunyadiisu waxay ahayd Abu Hafsa sidoo kale waxa lagu naanaysi jiray Faaruq sababta lagu bixiyay hay'ad waxa uu kala saaray xaq iyo baadilka. Umar bin Khattab waxa uu dhashay sanadii بعد عام الفيل 13 سنوات 13 سنوات sidoo kale Umar bin Khattab waxa uu dhalay 12 ciyaala 8 inamood iyo 3 gabdhood. Umar bin Khattab waxa uu xilka hayay 12 sanadood oo wax yar la sidoo kale waxa uu qabtay waxyaabo aad u fara badan waxa uu furtay Basra iyo Qudus waxaana uu furtay ardu Falastiin sidoo kale wuxuu ahaa ninkii bilaabay intaas waxay noogu gabagaboobay qaybtii hore barnaamijka oo ahayd soo jeedintii iyo warbixintii la siinayay ardayda. Imika waxaan u gudbi doonaa qaybtii labaad oo ah ardayda maanta martida loo yahay inay su'aalo weydiiyaan wixii loo soo jeediyay ay su'aalo ka weydiiyaan ardaydii soo jeedisay. Aan ku wareejiyo mikrofoonka qaybta iyo ardayda iyo waxay su'aalahayaan. Rahmaanir Rahiim anigoo magacaygu yahay Sabax Maxamed Sheekh kana socda fasalada 8aad dugsiga hoose Al-Irshad Primary School waxa maanta halkan noogu yimid arday ka socota dugsiyada Al-Irshad Secondary School ardayd nooga soo jeedisay qisadii Umar bin Khattab waan ka faa'iideysanay balse waxaan ku weydiin doonaa hal su'aal waxa weeyaan waa kuma Umar bin Khattab aftirsiin ahaan. بسم الله ولا شيء صباح آديات بماسنتاي سؤال جوابتي ذاتان سودايو عمر بن الخطاب أبترسينان حوها هو عمر بن الخطاب بن نقيل هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الله بن غريدة بن رياح بن رساب بن كعب بن لؤي. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد يا أحمد إبراهيم كنا سعودي سكول كالرشاد بريمري سكول أنا كلاس استعداد وحن ويدين سؤال إمسا عرور ayaa u dhalay Umar bin Khattab. Su'aasha jawaabteeda isku dayo Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu dhalay 12 caruura 8 inamood iyo 3 hablood caruurtiisa waxa kamid ahaa saxaabigii weynaa Cabdiraxmaan bin Umar oo ahaa asxaabtii rasuulka ugu dhaweeyay kuwii ugu caansaneedba sidoo kale wuxuu dhalay Xafsa bint Umar oo ahayd ummahatul muuminiin xaasaskii nabiga kaleey salaam. بسم الله magacayga ah Amir Jaamac Jaamac kala socda kalaasada 8aad halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hablaha ka yimaada secondary-ga qaybteeda labaad aanan ka faa'iidnay qisooyin aad u badan aanan horaanan aqoon su'aasha aan weydiinayaa wax weeyaan xilmo u dhashay Umar bin Khattab jawaabteedu waxay noqon kartaa wuxuu dhashay Umar bin Khattab rabi raaliha ka ahaadee بعد عام الفيل 13 سنة كدب سنة كم مرودياش 13 سنة كدب. بسم الله magacaygu waa Faadimo Maxamed Faarax waxa ka socda dugsiga Al-Irshad Girls Primary School gaar ahaan fasalada 8aad waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala isku keenay madashan quruxda badan leh iyo barnaamijyadan qiimaha badan leh ka faa'iideysiga u baahan waxaan u mahadcelinayaa hablaha inoo yimid ka yimid qaybteeda labaad ee Al-Irshad sida inoogu soo bandhigeen iyo sida inoogu faa'iideynayaan iyo sida ay ugu howlgaleen inay anaga wax nooga faa'iideeyaan waxa ay barteen aad bay ugu mahadsan yihiin wax kale oo mahadcelinayaa macallimiinta ku howlan inay barnaamijyada diyaariyaan aad baan ugu mahadcelinayaa iyo bahda saxaafadda Al-Irshad aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waan ka faa'iideysanay waxay noo soo bandhigeen iyo barnaamijkii noo soo bandhigeen laakiin se waxaan weydiinayaa hal su'aal oo ah sabab ma ayuu u soo islaamay Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Bismillah hadan su'aasha jawaabteeda isku dayo wuxuu ku soo islaamay
cumar radiallahu canhu walaashii iyo ninkeeda oo islaamay oo muslimiinha ayaa way tukanayeen markaasuu albaabka kusoo qaraacay kadib wuxuu ku yidhahday kitaabkii qarinayeen bay ayay qariyeen wuxuu ku yidhahday waxaad qarinayseen kaan waxay sameeyeen waxay ku tiri hadda soo weysayso markuu soo weysaystay ayay waxay ku akhriyeen suuratu daaha kadib aayadihii ay akhrinayeen ayaa qalbigiisa galay sababtaasna kusoo islaamay barakaatu magacaygu waxa weeyaan xabse xasan cabdiraxmaan waxaan u mahadnaqaa marti sharafta ka socota Al-Irshaad Secondary School su-aashan weydiinayana waxa weeyaan imse sanadood ayuu xukumayay Cumar bin Khataab muslimiinta bismillaah su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo amiirulmuuminiin Cumar bin Khataab waxa uu xilka hayay 10 sannadood 8 bilood iyo dhowr cisho 12 sano wax yar la bismillaah anoo magacaygu yahay Safa Cabdullaahi Sheekh Xasan waxaan ka socdaa fasalada 8aad ee dugsiga Al-Irshaad qaybta hoose dhexe waxaan aad ugu mahadnaqayaa ardayda nooga timaaday fasalada secondary-ga ee qaybta sare ee Al-Irshaad iyo macallimiinta ee soo diyaariyay barnaamijkan haddaan mid ka mid ah weydiiyo su'aalaha ardayda waxa weeyaan waxaad sheegtaa 3 guulood uu ka gaaray intii uu hayay khulafada muslimiinta Cumar bin Khataab bismillaah jawaabta su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay horta dhiga taariikhda hijriyada wuxuuna furay dalalka Masar iyo Qudus wuxuuna ahaa qofkii sameeyay dowladaha muslimka uu sameeyay gobolo kala qaybiyay una sameeyay barasaab بسم الله أنا مقعي من عمر محمود كنا صعد في سلة سدادات وحقنا ما هاد نقيا أرضي ناقة من سكندرية لبض معلنا دهنا معاني ابتدائين يصير كالعد فتح وحن ساش ويدين دنا وحنا نقول سعيد اللي عمر بن الخطاب قرر ما سلد له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهريم أنا مقعي فاطمة عبد الله الشيخ وكسعدا فصلة سدادات دوكس جها صالح الإرشاد وجهرين أدي بدو مهتسنتين سيدا في عنا ناقش كيسان قصة عمر بن الخطاب رن أهانتي أدي بنو كفايدة سنة قصة عمر بن الخطاب وحنا نقرن بنو مانتا كفايدة سنة لكن وحنا على هذا السؤال أنا فهمي واي أو إن ذي فيديو إن ذي فايدة سن سؤال شنو حويان قرمي فرط خلافة عمر بن الخطاب مقالة قدسية مصر إذا كرالي أنا حد يشكتان أصحابتي فرطين بسم الله أنا مقعي وياي هدية عبد الله أحمد كانت ترسل سكول كالرشاد برايمري سكول كارهان في سلة السدادات ما توحنا كسلام يا دادياش برنامجك يا مع لبض معلنا كسعودة الرشاد سكندري سكول عبد الفتاح يا عبد الدايم وحن على استماتين كويدي سؤال شو نحن نقنصه نبي halkee كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر بن الخطاب أبترساها jawaabteedu waxay noqonaysaa weydiisay Faaduma ay ahayd goormay furtay khilaafada Cumar bin Khataab magaalada Qudus iyo Masar sheegna saxaabigii furtay waxay noqonaysaa magaalada Qudus waxa la furay 15 hijriyada xagga magaalada Masar laga furay 18 hijriyada isku hal saxaabin baa furay oo ah Cumar bin Caas su'aasha kale ay weydiisay Cumar waxay ahayd ayaa dilay Cumar bin Khataab goormay la dilay عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحنا الدلي لبلا تنكي هجرية وحنا الدلي يهودي لو نشري بلول والمجوسي سؤال شيء سوي ديسي ولكن هذه وحيد ترى هذا هالكيك كل ما نبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكوا كل ما بن كعب بن لؤي حتى إذا كان السؤال اللي ويديو إذا كان واحد بدك فايدة قصة عمر بن الخطاب واحد sheegtaan qaseer oo gaaban oo ku saabsan asxaabigii weyn Cumar bin Khataab marka hore madaxa kulmiso asalaam waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib waxa mahadi munaayo sharaf u dhamaatay Allah weyn isku ka keenay madashan maanta waxa sidoo kale waxaan mahadnaqayaa ardayda barnaamijka wadata mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahadnaqayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa maamulaha dugsiga Al-Irshaad Primary School Sayyid Sheekh Ibrahim oo noo ogolaaday in barnaamijkan aan ka qayb qaadano waxaan ka socdaa fasalka 8aad ardayda magacayga ah Nida Yaasiin Bade waxay ardayda ayaan Axmed Caydiid ay weydiisay sheeg qaseero gaabanad ka xasuusato saxaabigeena weyna Cumar bin Khataab Allah raalaha ka noqday waxaan ka xasuustaa aniga Cumar bin Khataab radiyallahu anhu maalin baa lagu yiri asxaabta lagu yiri dushisheeya dad dushisheeya ka yimiday waxa lagu yiri Cumar bin Khataab natusa waxay moodayeen Cumar bin Khataab markii lagu yiri natusa
nin dhow sheekay midba ay Umar bin Khattab tusa asxaabba soo kaxay waxa uu tusay Umar bin Khattab nin geed hoos fadhiya ismu lahayn waayo wuxuu islaa Umar bin Khattab ninkan warkiisa kugu batay wuxuu islaa nin dhex fadhiya boqortooyo ama meel wada dahab islaa ayuu dhex fadhiya balse waxa uu tusay nin geed hoos fadhiya oo dhas wada saaran yahay oo iska hoos jifa markaas uu qaadan waayo wuxuu ku yiri itusa amiirkiina niga warbatay Umar bin Khattab la yiraahdo itusa markaas ku dhawa ka geedka hoos fadhiya markaas inta ninkii dul istaagay Umar bin Khattab markaas ku dhaca cadilta tuma nimta wada cadaalad bad samaysay kadibna waad seexatay qisadaas aan ka xasuustaa waxaan filayaa in si fiican aan kaaga jawaabayaan Axmed Caydiid ma